wararka naga soo gaaraya qaybo ka mid ah dalka qaasatan gobollada Gedo, Baay iyo Bakool ayaa waxa ay sheegayaan in saraakiisha ciidamada Itoobiya ay halkaasi ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo hor leh oo ay ka bilaabeen deegaanadaasi iyaga oo kulamo la qaadanayo odayaasha dhaqanka ee deegaanada iyo gobollada. Ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in Itoobiyaanka ay hadda shir isugu yeereen odayaasha dhaqanka ee gobollada Gedo, Baay iyo Bakool oo ay ka howlgalaan ciidamada Itoobiya. Wararka ayaa intaasi ku daraya in kulamadani ay ka dhaceen deegaanada xiga dhinaca xadka labada dal, diiradana lagu saaray xiisadda haatan taagan ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. Dowladda Itoobiya ayaa qaaday tallaabo kale oo hor leh oo ku aadan damaceeda, taas oo ah sii joogisteeda gudaha Soomaaliya maadaama ay qayb ka yihiin ciidankeeda howlgalka ADMIS ee hoostaga ururka Midowga Afrika. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya ayaa waxa uu la kulmay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in laga fiirsado in ciidamada ADMIS ay gebi ahaanba ay ka baxaan Soomaaliya, khaasatan gobollada Baay, Bakool iyo Gedo. Dowladda Itoobiya ayaa Mareykanka u gudbisay in laga fiirsado ka hor inta aan la go'aamin bixista ciidamada ADMIS ee ka socda dhowr dal oo Afrikaan ah, kuwaas oo 15 sano ee ugu dambeeyay joogay gudaha Soomaaliya. Sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen in loo baahan yahay in la tixgeliyo dadaalada joogtada ah ee dhinaca ciidamada Itoobiya ee kula dagaalamayaan Al-Shabaab, isagoo xusay in door muuqda ay ka qaateen howlgallada ka socda gudaha Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa kaaliyaha xogayaha arrimaha Afrika u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay isla garteen ayaa la yiri in la sii wado dadaalada socda ee ku aadan soo afjaridda ururka Al-Shabaab oo loo arko inuu halis ku yahay amniga gobolka. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo la filayo in dhamaadka sanadkan ciidamada ADMIS ay isaga baxaan guud ahaan dalka, waxaana dowladda Soomaaliya ay qorsheynaysaa howlgal kale oo bedelaya kaasi oo ay ka mid noqonayaan ciidamo ka socda dalka Masar, taasi oo ay diidan tahay dowladda Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa haatan u dhaxeeya xiisad xooggan oo ka dhalatay heshiiskii dhinaca biyo raadinta ama baddoonka ahaa ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu la galay Somaliland. Fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir barahayaga bulshada oo channelkana subscribe noo saar, Facebook-gana follow noo dheh. Mahadsanidin.